magaaladii Baydhabo ahayd mucjiso ayaa ka taagan ninkan oo lagu daray ninkan oo lagu daray ninkan oo lagu sii daray ninkan aad aragtaan oo lagu daray kan aabana uu yahay ninkan dhammaantood waxay ka adkaan waayeen halkan inaad aragtaan isaga dartiis ayaa dhowr mar dib loogu dhigay doorashada koonfur galbeed maanta kulankii ugu horeeyay ee xildhibaanada koonfur galbeed ay yeesheenna isaga dartiis ayaa booq loogu kala tagay cabsi weyn ayayna qabaan filla Soomaaliya xisbiga JSB guddiga doorashooyinka iyo dhammaan siyaasiyiinta maamulka koonfur galbeed ee taabacsan dawladda haddaba maxaa ka socda magaalada maxaa lagu kala tagay laba qodob oo Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Aadan Madoobe ay isku hayaan waan kula wadaagi doonaa sidee u aragtaa saameynta Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo raggii oo isku tagay oo ninkan loodin waayay qaybta hoose comment-ka nagu reeb muuqaalkana sii share gareey like nasar waxa maanta magaalada Baydhabo ka qabsoomay kulankii ugu horeeyay ee xildhibaanada cusub ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas oo noqonaya xildhibaanada ugu horeeyay ee doorasho qof iyo cod ku yimaada sida ay aaminsan yihiin filla Soomaaliya kulankii ugu horeeyay waxa uu ku soo dhamaaday buuq isfahan darro iyo sidoo kale in ay ku kala tagaan xildhibaanada oo ay ku kala fikirtuwanaadaan sababta ugu weynna waa in cabsi weyn laga qabo Shariif Xasan Sheekh Aadan dastuurka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo kan federaalkaba waxa uu qabaa in marka xildhibaanadu la doorto qofka ugu daada weyn uu si ku meel gaar ah u sii hayo guddoonka golaha wakiilada ama baarlamaanka kadibna doorasho ay dhacdo oo qofkii imaan lahaa la keeno laakiin maanta wax yaab leh ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo xildhibaanadu marka ay yimaadeen ninka ugu daada weyn waxa la aaminsanaa inuu ahaa nin ka tirsan xisbiga Shariif Xasan Sheekh Aadan laakiin xisbiga JSB iyo filla Soomaaliya waxa la sheegay in nin ka dhow oo xisbiga JSB ka tirsan ay qaadeen oo ay keeneen baasaboorkiisana ay daada ka bedeleen kadibna ay sheegeen in ninkan uu yahay ninka ugu daada weyn iyagoo ka cabsi qaba in saameyn weyn ay ku yeelato maadaama ninkan daada weyn uu ka soo jeedo xisbiga ama uu ka tirsan yahay xisbiga Shariif Xasan Sheekh Aadan xildhibaanada koonfur galbeed sare ayaa la dhaariyay dib ayay dhowr mar u dhacday laakiin waxa la leeyahay ceebta ugu weyn ee taagan waxay tahay xildhibaanadu waa 95 xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan waxa uu ku leeyahay 14 xildhibaan halka xildhibaanada JSB ka socda ee filla Soomaaliya dhankeeda ka socda ay tahay ama ay yihiin 51 xildhibaan waa marka la eego kala bar qayb kamid ah JSB ay tahay oo haldeeri ah halka xisbiyada kale ee tartama ay leeyihiin 30 xildhibaan marka xildhibaanadaasi waxa la leeyahay 14 xildhibaan ayuu Shariif haystaa laakiin maanta waxa uu taagan yahay diyaar ayaan u ahay inaan tartabo shaki weyn ayay abuurtay intaasi filla Soomaaliyana waxay u aragtay ninkan uu yahay khatar weyn waxa la soo wariyay oo ila xoogaa in la wadaageen in xubno ka tirsan xisbiga JSB ee continue kooda xildhibaan ah in ka badan ama in badan oo kamid ah ay taageersan Shariif Xasan Sheekh Aadan isagu xisbiga ka soo dhax saaray xisbigii uu ka dhax shaqaystay maanta hadii doorasho la dhahana ay u codanayaan Shariif Xasan Sheekh Aadan iyagoo Aadan Madoobe xisbigii JSB uu musharax u yahay taasi shaki weyn ayay keentay waa laga cabsaday marka la isku dardaro xildhibaanada uu haysto Shariif Xasan Sheekh Aadan waa 14 xildhibaan 30 xildhibaan oo xisbiyada kale ka tirsan badankood waxay ku biireen JSB oo 51 xildhibaan haysto marka ugu badnaan la isku daro xildhibaanada uu heli kara Shariif Xasan Sheekh Aadan waa 29 ama 30 xildhibaan laakiin cabsi ayaa jirta oo waxba la aaminsan yahay in boqolkiiba 50 in ka badan xildhibaano uu heli karo Shariif Xasan Sheekh Aadan taasi oo laga duulayo ayay filla Soomaaliya waxay isku dayaysaa inay bedesho qorshaha doorashada Aadan Madoobe waxa uu ku doodayaa hadii doorashada aan gacan taag laga dhigin inuusan ka qayb galin doorashada sida ila xoogaa in la wadaageen Shariif Xasanna waxa uu leeyahay doorashadu hadii aysan sanduuq ahayn anigu kama qayb galay mana ogoli gacan taag wax la dhaana doorasho ma jirto ayuu leeyahay haddii doorashadu sanduuq ay haaweysana waxa uu ku dhawaaqay inuu qaadici doono doorashadaas una ka qayb galin batatan filla Soomaaliya Aadan Madoobe xisbiga JSB iyo guddiga doorashooyinka iyagoo ka cararaya qatarta kaga imaan karta Shariif Xasan Sheekh Aadan waxa ay rabaa in doorashadu ay ka dhigaan gacan taag maadaama konton koow xildhibaan oo JSB ay haystaan qof kale ay u codeyn karin hadii gacanta la taago laakiin hadii la dhaw sanduuq waxa la leeyahay xubno badan oo JSB ka tirsan ayaa u codeyn kara Shariif Xasan Sheekh Aadan waa sababta ay ugu cararaysa filla Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka qatarta kaga imaan karta dhanka doorashada sanduuqa dood badan ayaa taagan waan la isku fahmi laayahay Shariif Xasan Sheekh Aadan waxa uu taagan yahay hadii doorashadu ay noqoto gacan taag oo xildhibaanadu ay ku dooranayaan madaxweynaha anigu qayb kama ihi halka Aadan Madoobe uu leeyahay hadii sanduuq ay noqoto anigu qayb kama ihi ceebtaas ayaa laga cararaya
xisbiga JSB ee dhaqaalaha badan ku bixiyay doorashada ee aadan madoobe lacag badan dul dhigay ee siyaasiyiintii ugu badnaa ee dawladda ka tirsan ee koonfur galbeed ka soo jeeday isugu geeyay aadan madoobe ay taageereen maanta waxay ka adkaalayeen Shariif Xasan Sheekh Aadan isaga ayaana kaga saameyn badan dhammaan dawladdii iyo siyaasiyiintii koonfur galbeed marka la eego deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya wala dhowraya waxa ka soo bixi doono siday wax noqon doonaan dhowr jeer oo dib loo dhigo doorashada hadda waxa lagu ballam in la isugu yimaado biri si loo doorto gudoomiyaha ku meel gaarka ah filo Soomaaliya waxay ku adkeysanaysaa guddiga doorashooyinka xisbiga JSB ninkii baasaboorka daada looga bedelay halka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xubno xisbiyadan ka tirsan ay ku adkeysanayaan in ninka ugu daada weyn uu yahay nin ka tirsan xisbiga Shariif Xasan Sheekh Aadan laakiin waxa la dhowraya waxa ka dhalan kara biri iyo waxa ka imaan kara doorashada iyo sidoo kale xulidda gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee doorashada ee koonfur galbeed Soomaaliya